هذا كوفي لو جيت أيام دنيا جوجيني هذيك جدكين لقو ودي جميع لاني جهنم لقيو هذا آخر جهتو nimankii janno kacay warbay jirin shalay afarta gedan oran jiray iyo gololadaydii dhe garbadan ka soo horin jiray godolna qaygii dhe masfac gaw yadhaahda iyo rasaas ginidhigteedii dhe gulaamo roob daahaya iyo gababaxdiisii dhe gululaciya may la isku daray galangalkoodii dhe unka guguguclayn iyo hilaac galalacdiisii dhe gal xareeda dad soo gabraday gal iyo duufaan dhe bad gariirtay mawjada gurxamay gacamadii ay shir la gooyay waayeel gab yiri garangartiisii dhe xarir lagu gamaamada hayo gole firaasheed xaajada ninkii garanaya iyo gigiyo sheegeed inuu halganka inta la eg oo qayb yaani ilaa biloweyne ilaa ayl ilaa hadii aanu galbari buuro badda maakhir koos ah ilaa hadii aanu ku leeyahay afaafka burco ilaa qorxay iyo hadii aanu tigsiga inta u dhaxaysa inuu xukumo oo daraawiisha xukunta sidee ku dhacday ingiriiska ka jawaabay taas waxay yiraahdeen idinku badaasaati maski ku jiray ingiriis waa maska idinku u badaasaati ku jiro balse idin kala saaraya sheega nin kamida waftiga dhalinyarada bud la booday isku burburi badiyo maskide saas buu jisu asaasan isku burburinaya hadii kala iska saara bahalka wuxuu ahaa nin mujaahida oo xaniya cadda oo gaalay iyo cawaankeed wadanka ka hiray dhulkeena ka hiray nin darwiisha oo hadii la ku roon yahay baan u sheegay gabagaas waxaan iri nin hadii la ku roon yahay ingiriis ah arkado wuxuu yiri waa gabay bahalnimo iyo aadamanimadu ku yartahay oo bahalnimo ka muuqato qof meeyda in sidaas looga hadlana sayidku waa ku qaldanaa waxayna muujinaysaa inuu ahaa hadii la ku roon yahay dhigacab ninkii darwiishka ahaa markaan inta u sheegay wuxuu yiri wax ma ku tiri adigu burco iyo beer maxaa ka soo doontay oo ku keenay kuma oran baa hal madow higaad iyo quraan ha iyo wow reeban hanadnimo iyo hooyaala gabay heella iyo maaso nin kasta naftiisa ha hafrehoodo aniga leebu kina adeegiisii markii la yiri dhulka Soomaalida inta badan xukun Ingiriiska iyo Talyaaniga u soo jeediyeen wuxuu yiri haddii seefo iyo maare iyo sumac la ii qaato cadaawuhu hadday igu soraan saqaranaareeda meeshiiyo sawaakimi haddii la iga seeraarsho sakadii cadmeedii haddii saaxil la igeeyo faranjiga la saayiro haddii la igu soo yaansho samci maayo sawdaan ahayn siinka looxa ah rabba deeqla rooba qabo ruqa abaar baale bad baareen la arba ridamar horis faras baale janna ruga raxmaan baa baryale raacis nabi baale warda rugis la wali baa rilala rabid shareeca le rumba fiican been baa rafaan raran cadaab baale rataa xoog la geel baa rukale ramad haleelaale waa jaadadka ugu adag ee gabayga la tiriyo nin adeega faranjiya amba awrtaba u qala amba arigaba u qala amba uba ilaala ah ama uurka kala jira ashahada beeniyo islaamnimaha lagu dhaqo ilaahayna ma ogolaana kama qamil karo muslimnimo niman kugu dhaqayn muuminnimo khaasa gal maxasta ku dhowrood magan sata dhaama ali isagu sidaas uu gabiyay oo macni heerabtaas uu taagnaa sayid maxamedna wuxuu lahaa dagaalkii nasaarada kristanka dagaalkii nasaarada ana daalib ku ahaa dalka malihid aniga ku iri doora weynaha diintayda anigaan ku gadan dabaqi naareed ana labada darotan hore darajo mooday heerka iyo heerabta inta leeg buu taagna dhacdada koowaad waxay ahayd xeebta iyo dekada berbera oo ninkii ingiriisiga joogay ama askartiisii ay sayidka weydiiyeen inuu cashuur bixiyo alaabtii uu watay oo xajka kala yimid markaasna uu yaabay oo yiri adiga waxaad ku tiraahdaa ninka ingiriis yaa adiga cashuur ka qaaday markaad soo degtay markaan daraawiishtaha ayuu sayidku oran jiray buuri anigu gacanta ilaahay baan ku jiraaye bal cid ay kala baxda iyaan eegaya erigi baan xusuusta markuu banaantii oo noo muuqan lahayd oo keenkii naga xigto وقالكي إنك عليا ماشي
in ereyga xusuustay buu ninkani gabaygu wuxuu ahaa meeluu ereyga iskaga kala raseeyo ereyga ku jira iyo kaydka af Soomaaliya ku jira ninka farihiisa halkan aad ka dareemaysa wuxuu yiri inan suura aqal saari badan dadab la seen saabay 30 baaro saableeginka saraabe ayaagta sali gogol saahood la shaday saaqatada qaaca sanifaad xariiriya baftiya khayl iyo suuti sangaburan soogaan darmaan salaba guudar la sid ka ramada seeyi idii soobiriya ay rimay sararweyn golso kaman qalma surun suura markale wuxuu yiri dawa lagama helo gaal hadda daawo dhigataane waa idin dagaaya kufriga aad u dabcaysaane dirhamku idin qubahaya dib u go'aysaane marka hore dabku idin ka dhigi dumar sidiisii marka xigana daabaqada yu idin dareensiine marka xiga dalku idin ku oran duuyo dhaabsada marka xiga dushu idin ka rari sida dameeraade marsaxdaan dushii adari iyo iimay dacal dhaafay maxaad igaga digataan baruusiin la soo degi gabayga waxay ka mid tahay u dambeysay waxay ka mid ahayd gabayga la yiraahdo dardaaran ee uu sayidku ku dardaarmay waana gabayadiisa kuwii ugu dambeeyay midkood hadduusan ahaynba kii u dambeeyay dee taariikh ninka gumaysi la dagaalamay ku soo dulo cadowga tinkaas ma taariikhda ku geli karo taalla iyo xus iyo qiimeyn mudan laakiin gumaysiga uu adeegay oo dabadhiil fu ahaa oo kaba qaad u ahaa oo dalkiisa iyo dadkiisa ku burburinayay maxaa qiimo bulshada dhexdeeda ku leeyahay tima cadde wuxuu yiri sayidkii taleex degay markay turuntureynaysa hadday taabacaan maalintii tani ma joogteen buu oo gaalku inaguma maceeysteen